sidaa uu sheegayna haddii ururada la furayo waanu soo dhaweynaynaa waxaase ka horeysa oo loo baahan yahay ururadana in la furo waqtigoodana la furo haddii laga soo horeysiin in codadka ma qabnay sidaa uu sheegay dee doorashooyinku dhan la soo wada qadibo mushkilad maaha waana ku fiican tahay in lagu daro xeerarka in doorasho waqtigeedii laga soo horeysay la qaban karo oo wax badan baa laga yaabaa in fududeyso waxaan uga gudbaynaa taa haddii la ka dhigo oo aan waxba codad ka qabin waa in dimuqraadiyadda oo dhan la koriyaayo dimuqraadiyaddu ma aha doorashadu kaliya waxay u baahan tahay dimuqraadiyadda in la koriyo oo runtii in dhaweydba laan gareynayso horumarkii aynu filaynay aanu ka muuqan waxaan uga gudbayaa khudbadda madaxweynaha aslan waxay xambaarsanaataa warbixin uu jeediyo labada gole iyo bulshadaba iyo sidoo kale qorshe sanadeedka totally waxa ka maqnaa khudbadda madaxweynaha qorshihiisa madaxweynuhu ma aanu qorshe lahayn mee qorshihiisa waxa uu qorshaysan mustaqbalka uu qaban doono sida uu dalka u hogaamin doono oo hagi doono mushkiladaha yaalay caqabadaha waxa sidii looga gudbi lahaa midkoodna madaxweynuhu kuma xusi khudbadiiso waa tan hor taalo afarta qodob oo kaliya ka hadlaysa afarta qodob ee ka hadlaysa waxa weeye dhaqaalaha adeega bulshada nabadgelyada iyo arrimaha dibadda oo kaliya oo warbixino waliba iyada lafteedu aad moodo inay warbixino yihiin kuwii u dhigmaa doorashada lagu gali jiray campaign-ka laakiin si aan hoos loogu daadegin oo dhibaatadii Soomaaliland taalay aan hoos loogu daadegin waxaan leenahay madaxweynaha waxa looga fadhiyay caqabadaha jira qaybsanaanta bulshada oo sidii loo midayn lahaaya waxa soo dhan lagaga hadlo waxba ka sii weyn farmaajo ayaa la isweydiinaya Hargeysa imanaya ilaa shalayta aan maqlayseen media iyo bulshada farmaajo Hargeysa imanaya farmaajo Muqdisho ku ogeeyno Muqdishona wada hadal baa inoo socdo wada hadalkii labada madaxweyne waa joojiyeen waxa ku xigtay labadooda kulmay Hargeysa imanaya maanta inaynu isweydiino farmaajo Hargeysa imanayaaba ayaaba qalada inaynu isweydiino sifada uu ku imanaya waa sifadee waxaanay ka dhalatay de kulankii madaxweynaha ka dhalatayoo hore uma inaan maqli jirin kulankii madaxweynaha ayay ka dhalatay madaxweyne hadduu jiro dadka inaad wixii meesha ku wada heshay wada sheegin ilaa in taasu soo baxdaaba meesha ma ahayn de waxay muuqatay inaad wixii noo wada sheegin soo jara baxo wixii ku wada hadasheen noo sheeg waxay ahayd runtii xisbiyada qaranka inuu loo yeero lagala tashado taladooda la weydiiyo la yiraahdo wada hadalkiiba ama furmaya ama arrin baa soo kordhay oo culayskaas soo kordhay maxaynu yeelaa ilaa haddana kama hayno xisbiyada haddaan nahay mucaaradka labada xisbiba waa nagan joogno wax waran aan ahayn inta uu halka ka sii daayay kama hayno wax talaana kama hayno waxana ka muuqatay warwarah farmaajo imanaya iyo halkaana inoo imareenba halkaana goor ay inoo gaadhay aru garmay halka inoo ma joogo farmaajo imanaya iyo miyuu imanaya iyo dad ka hadlaya oo le wax weeye ka hadlaya barno farmaajo talada uma inaan dhiibanay madaxweynaheena inuu dhiibanay muuse waxaan leeyahay talada in isku ogeeyay maxaaba de moodaha galiyay maxaaba moodaha lagaama filayna maxaa moodaha galiyay taa intaasan kaga tagaya talabaadna khudbadan ku noqonaya khudbada waxaan leeyahay qorshihii madaxweynaha ee uga qorshaysnaan lahaa midna doorashada marka laga hadlayo doorashada caqabado badan baa hortaagnaa oo ay ka mid tahay commissionka la isku hayo sidii saaxiibkay ka dhawaatiyay oo ay ka mid tahay saami qaybsigii oo sidii doorashada loo gali lahaa ama mid marka ururada la galiyaba doorasho la galiyahay ama mid ururada lagu galiyaha noqdo mid xisbiga lagu galiyaha noqdo saami qaybsiga mushkiladiisii madaxweynuhu kama hadal waana mushkilad weyn oo taagneed kootadii madaxweynuhu kama hadal commissionkii maalintii u dambeysay khudbadiisu ay ahayd waxaynu ku ogeeyno madaxweynuhu ka dhawaatiyay hadda hadalkii madaxweynaha doorashada waxa inoo qaban karaya commissionkii hore inoo qaban karaya ayaa madaxweynuhu ka dhawaatiyay waana markii lagu heshiiyay ay guddiga dhexdhexaad ahaa inagu dhexdhexaadiyeen tiina madaxweynuhu maanta ma soo qaadin marka waxaan leenahay waxaan ku taaganahay heshiiskii xisbiyadu ay waxa weeye guddigii soo saartay aqbaleen madaxweynuhu aqbalay waxaanu leenahay doorashadiina inoo qabo way fiicantay December inoo qabo doorasho dhamay inoo qabto si nacabdaas ka dhawaajiyay doorasho dhamay inoo qabsanto ururada inoo fur waa khayr iyo barake mushkilad ma ahayn laakiin si
wixii shaqo ku inoo taalay oo dhan baa meesha yaalay madaxweyne wixii shaqo inoo taalay kama dawaajin waxa inta raaco waliba qorshahaagii qaranka ee aad ku haagi lahayd ku hogaamin lahayd ee annaguna aanu ka hadli lahayn ama toosin lahayn ama taageeri lahayn ee bulshaduna ama qaadan lahayd ama ku qanci lahayd ma soo bandhigin dee qorshaha lagaga fadhiyo ma tanti salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh